video ku horeeyay waxaan ka hadalnay sida transplantska loo soo saaro laakiin video waxaan uga hadlaynaa transplantski markii la soo saaro qaabkii beerta loogu talaali lahaa nidaamyo kala duwan ayaa la maraa markii la rabo in transplantski la soo saaray beerta lagu talaalo waxaan soo xiganaynaa baaritaamo lagu sameeyay arrinkaas iyo saameynta ay ku yeelanayso wax soo saarkii beerta iyo beeraleyda iyo faa'iidadoodii waxyaabo kale oo ka hadlaynaa oo ku saabsan nidaamyada la maro markii la rabo in transplantki beerta lagu talaalo si wax soo saar fiican loo soo saaro fadlan ka faa'iideyso. السلام عليكم كسر هذا الفيديو كله إذا جالس فهم سومالي وطلق لنا كفايدستان ولا لا سوماليات ميعيقو علي باشي فضلا هدي أكو عصبتها كنالك سبسكرايب ده بالكنا تابو سيسا كودا في فيديو كستان صوري إنه هالكان وجود بي أولو ذاك ولا لا كلا سوماليات سيو كفايدستان ومع سنتين sidii aan video hore uga hadalnay markii aad soo saarto seedlinkii ama transplantki beerta lagu talaali lahaa markii aad soo saarto ha ahaato inaad greenhouse ku soo saarto ama ha ahaato inaad banaanka ku soo saarto waxaad u baahan tahay marka inaad beerta weyneed aad ku talaasho marka sidaas darteed videogan waxaan uga hadlaynaa hababka ku talaalida basasha ee beerta lagu talaalayo ayaan uga hadlaynaa iyo qaabka loo maamulo adduunka markii aad rabtid marka inaad transplant samaysid ama aad talaashid abuurkii aad soo saartay waxaa jiraan marka nidaamyo la raaco ayaa jira si aad u gaarto oo uga faa'iideysto dadaalkii iyo waqtiga aad ku bixisay inaad abuurkaas aad soo saarto oo isa ka qasaarin dabcan midaan hadda aad ka aragtid basal ma ahan laakiin nooc kasta oo seedlinkaas u yahay nidaamyo la raaco ayaa jira oo badanaa isku mid ah si wax soo saar fiican looga gaaro abuurkaas waxyaabaha ugu horeeya marka la sameeyo waxaa ka mid ah markii abuurkii la soo diyaariyay oo xilligiisii uu gaaray in wax la yiraahdo la sameeyo hardening off oo laga wado inaad maaragtay abuurkii haddii uu ku jiro caagado kale aad kusoo abuurtay inaad banaanka u bixiso oo qorraxdii aad tusto si uu adkaado oo uu la qabsado cimilada adag ee banaanka ileen haddii aad greenhouse kusoo korisay oo uu saaran yahay shade net oo kale qorrax toos ma heli jirin marka haddii aadan hardening off-ka period-ka aadan samayn waxaa ku dhacaya marka showgaas ayaa ku dhacaya abuurkaagii marka sidaas darteed banaanka ayaa loo bixiyaa inuu la qabsado haddii dabcan aad banaanka ku abuurto markii hore uu banaanka ka baxayay waxyaaba aad samayn karto hardening off-ka ka mid ah waxa weeye inaad biyihii ku yarayso kala camal iyo nafaqadii aad ka yarayso labada meeloodba sidoo kale waxaa lagaa rabaa maalinka aad abuurayso rabto inaad talaasho maalinkaas inaad waraab fiican siiso ayaa la rabaa oo inta aad soo bixin ka hor inaad waraab fiican aad siiso sidoo kale waxaa lagaa rabaa inaad abuurtid xilli oo qabow cimiladu ay qabowdahay oo subax hore oo kale alasaydii oo kale camal ah inaad abuurto oo intaysa qorraxdu soo kululaan aad ka dhamaato waxaa kaloo lagaa rabaa haddii aad rabtid inaad wax sun ah aad ku shubtid insecticide oo kale aad rabtid inaad ku shubtid waxaa fiican inaad intaas aad transplantka samayn inaad ku shubto si maaragtay meel yar oo kooban aad daawadii aad ugu shubi kartid ileen beer weyn intaa ku shubi lahayd daawadii xilligaas kooban meeshaas kooban ay yaaliin ayaa fiican marka inaad wixii insecticide ah oo ku shubi lahayd inaad ku shubto marka sidaan filayana hore u sheegay seedlinka markaas oo la rabo in banaanka lagu abuuro waxay diyaar noqdaan oo basasha 6 ilaa 8 usbuuc kadib markii aad abuurto kadib ayay diyaar noqdaan laakiin waxaa la rabaa markii aad rabtid inaad talaalida samaysid oo aad ka bixisid meeshii ay ku jireen inuu yahay 5 ilaa 7 millimeter diameter ahaan inuu yahay ama uu la eg yahay maaragtay inta oo pencilka oo kale camal size-kiisa inuu la eg yahay ayaa la rabaa jiridiisa iyo maaragtay intuu la eg yahay xoogaa geed awood leh uu yahay ayaa la rabaa dabcan taas waxaa ku gaari kartaa inaad maaragtay siisid nafaqadii iyo biyihii ku habboonaa xilligaas imisa marka la isku jirsiinayaa basasha way ka duwan tahay sidaan arki doono dalagyada kale qaar basasha waxaa la isku jirsiyaa marka 30 sentimitir ayaa waxaa la isku jirsiyaa safafka marka labada saf 30 sentimitir ayaa isku jirsiinaysaa laakiin halkii saf geedaha ku jiro kale sida sawirka aragtid waxaa isku jirsiinaysaa 10 sentimitir ayaa isku jirsiinaysaa marka aad ayay isku dhow yihiin markii geedaha qaar loo eego marka halkii hektar micnaheedu waxa weeye taas 200,000 oo geed oo basal ah ka badan ayaa galaysa halkii hektar markii la rabo marka in aad soo bixiso transplantska oo aad banaanka keento 3 sentimitir camal
ayaa la rabaa inaad ciidda ku duugto, aad inaad ugu fogeysaa lama rabo, 3 sentimitir oo kale ayaa duugaysaa. haddii marka aan eegno inta gelaysa geedaha kale, tusaale ahaan yaanyadoo kale 15,000 oo geed camal ayaa waxaa la geliyaa halkii hektar oo yaanyo ah ayaa la geliyaa, meesha 200,000 ka badan la gelinayo basasha. marka taas micnaheedu waxa weeye waa inaad u haysataa geedaha saa u fara badan oo aad rabtid inaad basasha halka meel aad ku abuurto halka hektar ah, waa inaad u haysataa nidaam aad ku abuurto waxaas oo geed ah oo sahlan, ileen lama mid ahan yaanyadii iyo barbaroonigoo kale iyo lamid maahan. marka intaad dhul weyn abuuri lahayd oo aad u kala fogo lahayd oo aadan si nidaamsan u abuuri lahayn, waxaa ka fiican adoo 1 hektar si fiican u abuura oo isku dhoweeya oo nafaqadoodii iyo biyahoodii iyo cuduradoodii meeshaas kooban waardiyeeya, intaa 3 hektar oo kala fogfog aad abuuri lahayd oo intaas nafaqa kaa raba oo wax walba kaa raba. marka booskaas inaad maamushid oo ka faa'iidaysatid ayaa ka fiican, qaabkii ugu fiicnaana u abuuro u talaala. marmarka qaar way jirtaa wax yar in la kala fogeeyo, laakiin sizekan waa sizeka ugu fiican oo inta badan la raaco oo la sameeyo aan soo sheegnay. laakiin markii xoogaa yar intaan la isaga soo dhoweeyo waxaa dhacaysa in bulbska ama maaragtay basasha soo baxaysaa ay ka yaryar tahay sidii la rabay, oo haddii aad isku dhoweyso waxaa dhacaysa marka in wax soo saarku u bato, laakiin geed kasta oo basash kasta oo soo baxdaana ay yar tahay, saas ahaan ay yar tahay. marka waa anaga niri inaad nidaam u samaysid ayaa lagaa rabaa oo aad ku abuuri lahayd basashan. marka qaabab kala duwan ayaa loo abuuraa, soomaalidoo kale waa naqaanaa badanaa gacanta ayay ku abuuraan oo intay soo bixiyaan meeshii ku jirta kasoo bixiyaan ayay waxay ku abuuraan gacanta. meelaha qaar waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaha semi automatic machines oo ah in maaragtay gacanta aad kula rido laakiin mashinku uu asagu abuurayo talaalayo wax badan la samayn karo. qaar waxaa jira marka oo automatic machines ah oo qofna uu safuulayn oo gadaal la saarayo, qof darawal uu wadayo oo ayagu basashii saa u abuurayo, dhul weyn abuurayo, intaba way jiraan. marka waxaa muhiim ah in nidaamka gacanta ah aan bedelno oo aan nidaamyo kale aan raadino oo wax badan lagu abuuri karo. qofka haddii qalabka noocaas kale soo gato xitaa waxa u suurtoobaysa inuu maaragtay keligiis isku hadlayne uu ka iibiyo, uu ka kireeyo beeraleydii kale oo mashiinkii uu haystay beeraleydii kale uu ugu abuuro. laakiin taasoo kale waxay u baahan tahay badanaa in la isticmaalo qalab ku habboon oo maaragtay caagado lagu soo koriyo basashii oo lagu abuuro kabacdi la isticmaalo qalabkan. marka wadamada oo dhaqaalaha fiican haysta oo basasha si fiican usoo saara, marka waxaa lagu abuuraa caagadahaas ama trayskaas ayaa lagu soo abuuraa, kabacdi ayaa la talaalaa. mararka qaar haddii beeruhu yar yihiin dadka waa arkaysa ayagoo maaragtay gacantooda ku talaalaya, laakiin haddii la rabo dhul weyn in lagu abuuro waa shaqo aad u culus oo dhib badan oo dadka dhabarka jebinaysa oo wax badanna aan lagu soo saari karin, waqti dheer ayay qaadanaysaa in la sameeyo. marka tusaale labadan article ayaan gooni usoo qaatay oo ka hadlaya imise saac ay qaadanayso in la abuuro 1 hektar oo basal ah haddii la rabo in maaragtay gacanta lagu abuuro oon mashiin iyo midna aan la isticmaalin. article koowaad wuxuu yiri waxay qaadanaysaa 400 oo saacadood halkii hektar. dabcan waa baaritaan ay sameeyeen oo ay tijaabo sameeyeen oo shaqadii ay qabteen. article-ka labaadna waxay qaadanaysaa ay yiraahdeen 185 ilaa 265 saacadood halkii hektar ayay qaadanaysaa. baaritaankaas marka wuxuu muujinayaa in ay qaadanayso 11 seedlings inuu qofku u talaalo halkii daqiiqo. taasna waxay noqonaysaa marka 660 transplants inuu qofkii uu saacadii uu samayn karo. marka haddii 200,000 laga rabo oo basal ah halkii hektar, saacadiina qofkii uu samayn karo 660, taas marka waxay dhacaysaa inay waqti dheer oo aad u fara badan ay qaadato oo wax soo saarkii wax u dhibaysa. marka waqtiga ay qaadanayso iyo khasaaradaas kaliya xataa ma ahane, dhibaatadu waxay kaloo ka jirtaa in wax soo saarkii uu liidanayo oo dad badan oo Soomaaliya shaqadaas culus darteed ay beerihii uga tagaan, maadaama ay shaqo oo jirka laga qabanayo aad u culus oo dhabar jabisa ay tahay, dhaqaalihiina uu liito iyo wixii lagu iibinayo hadhow. marka sidaas darteed haddii aanan maaragtay isku dayin inaan mashiino iyo qalab aan isticmaalno, waxaa dhacaysa in maaragtay aan dad kale isku hadlayno oo cuntada ay noo keenaan. marka waqti ku khasaaraya kaliya ma ahane xitaa
baaritaamada la sameeyey oo articalka ay sheegayo wuxuu ku tusayaa in ay keenayso dhabar xanuun waqtiga dheer ah oo qofkii maadaama uu aad u fooraro oo geedihii ay isku dhow yihiin oo 10 sentimitir la isku jirsiinayo oo is saarsaaran yihiin sidii yaanyadii oo kale ma ahan qofkii waxay u keenaysaa marka dhabar xanuun waqtiga dheer dhabar xanuun ayay u keenaysaa iyo dhibaato weyn marka sidaas darteed waa u baahannahay waxna caawiya oo aan ku bedelno kaartadan khaas ahaan basasha oo kale oo aad la isku dhaweynayo ansalaatooyinka oo kale iyo geedaha aadka weliba la isku dhaweeyo marka qofkii mashiinkaas kale soo gatana dabcan haddii dad kale oo la isticmaalo uu helo aqoonteedii iyo nidaamkeediina uu leeyahay lacagtiisi wuu soo celinaya hadda kan oo kale seedling transplant ayaa la yiraahdaa oo gacanta ayaa laga isticmaalaa oo mashiin ma ahan sida aad ka aragtay sawirka ciidda ayaa gelinaysaa kabacdi mirtii ayaa ku dhex ridaysaa kabacdina qaybta kore ayaa dhifanaysaa markii aad dhifatid isagaa ciidda isku duugaya marka ma foorarsanaysid shaqadiina waxay noqonaysaa boobsiis marka nidaamkan oo kalena aad ayaa loo isticmaalaa waana raqiis qaarkood $100 ay joogaan ama $200 waxay ku xiran tahay tayadiis qaar ka raqiisan xitaa way jiraan shaqadiina aad ayay u fududeynayaan oo qofkii shaqadiisa si sahal ayay uga dhigayaan kuwa marka oo cagafta lagu xirana way jiraan oo la isticmaalo sida hadda sawirkan aad ka aragtid oo basashan la duugayo oo kale dadku waxay samaynayaan ayaga gadaal ay fadhiyaan qofna wuu wadaa kabacdi waxaa lagu ridayaa basashii oo diyaarsan oo caagada lagu soo koriyey oo ciidii xidid ku wadata ayaa lagu ridayaa kabacdi isagaa duugaya sidaas ayaa marka intaas oo hektar loogu sameynaya shaqadii 100 qof ay qaba lahayd 3 qof ayaa mashiin ku qabanaysa ciidda marka diyaarinteeda iyo falideeda aad ayay iyaduna ay muhiim u tahay weliba basasha marka ciidda in la hagaajiyo basasha aad ayay muhiim ugu tahay oo waxaa la rabaa in wax waaweyn oo dhan la burburiyo oo wax yar yar la soo reebo weliba tan oo kale waxay muhiim tahay markii naasiriga aad samaynaysid sidoo kale camal oo aad rabtid inaad seedlingka abuurtid aad ayay muhiim u tahay maadaama aadan rabin basasha meel fog inaad geyso lama rabo markii aad duugay sidoo kale iyo haddii aad rabtid inaad beerta weyn aad si toos ah aad ugu duugto marka ciidda in la simo oo la diyaariyo waxaa rabta adiga isticmaale haddaad qalab haysan aad ayay muhiim u tahay in nidaamkaas la sameeyo meelo badan marka adduunyada ka mid ah vegetable beds wax la yiraahdo ayaa marka basasha lagu abuuraa weliba dadka raba inay isticmaalaan drip irrigation oo kale iyo ama maaragtay raba in biyihii aysan dhex fariisan basasha oo ay hoos dhinacyada ay uga degaan mararka qaar marka seed bedkaas markii la sameeyo 4 ilaa 6 rows ayay sameeyaan marka halkii bed oo kale camal ayay u sameeyaan weliba nidaamkaas waxay isticmaalaan badanaa markii la rabo wax la yiraahdo direct seeding oo ah in maaragtay ayagu ay si toos ah ay mirta ugu abuuraan maxaa yeelay saa hore u sheegnaba ilaa dadka qaar mashiinada ku habboon haysta oo nidaamkii waraabkii iyo wixii dhan isku aadi kara isku habayn kara si toos ah way ugu abuuraan basasha inkastoo niri Soomaaliya oo kale markii la eego nidaamka waxaa fiican in aad maadaama mirihii iyo wixii dhaqaali nagu yihiin oo aanan mari karin maaragtay suntii oo lagu hortagi lahaa funguska iyo waxyaabahaas in maaragtay la abuuro lagu diyaariyo nursery badanaa saasna waa la sameeyaa hadda marka sidaan sawirka ka aragtid oo kale laymankan oo aad u jeedid waa midka oo trimlines ayaa loo yaqaanaa tractorka ayaa mara waxaa la isticmaalaa marka basashan markii la rabo in maaragtay lagu shubo ama insecticide-ka ama herbicide-ka ama fungicide-ka iyo nafaqada sidoo kale fertilizer marka lagu shubayo ayaa la isticmaalaa nidaamkan marka beertan oo kale markii la diyaarinayo si siman ayaa beertii oo dhan loo diyaariyaa oo loo simaa marka sida caadiga ah sida aad u diyaarinaysid ama beerta u falaysid waxay ku xiran tahay irrigationka iyo nidaamka aad isticmaalaysid iyo haddii aad roobka isku haleynaysid wadamada qaar oo roobka ku badan yahay roobka ay isku haleeyaan marka tan waxay ku xiran tahay sida aad u diyaarinaysid oo ciidda aad u falaysid waxay ku xiran tahay nidaamka aad rabtid inaad u waraabisid tusaale ahaan faro irrigationka oo kale iyo overhead irrigationka marka aad isticmaalaysid qaabka aad u diyaarinaysid ciidda way kala duwan tahay insha Allah videoga soo socda ayaa waxaan uga hadli doonaa dabcan nidaamka biyaha loo maamulo ee basasha marka sida caadiga ah dadka oo maaragtay transplant soo sameeya waxay rabaan inay soo saaraan bulbs ama basal aad u waaweyn maxaa yeelay qarash badan ayaa waxay uga baxeen soo diyaarintii ay transplantska ay soo diyaarinayeen qarash badan ayaa uga baxay marka inay isku jirsiyaan 30 centimeter iyo 10 centimeter oo laymanka dhexdooda ah waxay awoodaan marka inay soo saaraan wax soo saar aad u fiican geedihiina aysan aad isugu dhaweyn
aadna aysan u kala fogeyn oo waxay gaaraan heer ay qaarkood soo saaraan marka inta u dhaxaysa 54 ilaa 80 kun oo tan halkii hektar inay soo saaraan iyagoo soo saaraya weliba basal waaweyn ayay soo saarayaan laakiin tan dabcan oo tan inta u dhaxaysa inaad halkii hektar ka soo saartid waxay u baahan tahay marka maamul fiican oo laga soo bilaabo cudurkii ilaa biyihii ilaa wixii oo dhan inaad samaysid ayay u baahan tahay waana wax la gaari karo la sameeyo nafaqada haddii aan u nimaano nafaqada aad ayay muhiim u tahay waa waxyaabaha kuu sahlaya marka in qofka uu gaaro inuu soo saaro intaas oo tan waxay ku xiran tahay nafaqada aad isticmaashid maxaa yeelay ciidda aad isticmaalayso intaas aad beeraysay nafaqada iskama dhex fadhiso nafaqadii way ku qasban tahay in meel ay ka timaado oo aad ku soo shubto si geedkii uu koritaan fiican uu u helo nafaqooyinkaas marka waa badan yihiin nitrogen potassium phosphorus magnesium iyo sulfur marka waa nafaqooyin kala duwan laakiin waa u kala muhiimsan yihiin dalagyada kala duwan iyo basasha baaritaamo badan oo marka ay sameeyeen FAO kale oo UN ka tirsan oo ay ciidaha Soomaaliya uga hadlayaan iyo dad kale ay ka hadleen waxa la yiraahdaa ciidaha Soomaaliya waxay u badan tahay alkaline sidoo kale waxa ku yar nitrogenka iyo phosphoruska ayaa ku yar taas marka waxay keenaysaa labadaas haday ku yar yihiin in wax soo saarkii sida basasha oo kale waxa ay soo saaraysaa uusan aad u badnayn marka sidaas darteed haddii aad ku shubtid nitrogen iyo phosphorus hadaa ku shubtid basashaadii waxaa dhacaysa marka in ciidaha Soomaaliya ay aad ay uga faa'iidaan oo basashii ay si fiican ay wax u soo saarto weliba taas waxa sii dheer sida marka la arki doono basashu waa geedaha xididkooda uu aadka uusan meel fog uusan aadin xidid gaaban ayay leeyihiin marka sidaas darteed waxay u baahan yihiin maamul fiican oo nafaqada iyo biyaha inay helaan haddii marka phosphorus xataa oo dalagyo hore ku shubtay ay ciidda ku jiraan maadaama phosphoruska uu yahay waxa loo yaqaano immobile marka sidaas darteed anyonkii xididkoodii waa ku adag tahay inuu gaaro marka sidaas darteed markasta phosphoruska waa u baahan tahay inaad ku shubtid basashii inaad ku shubtid markasta waa u baahan tahay wuu ku yaryahay marka wixii hore ku shubtay micno ma lahan waa haddii aad rabtid basal fiican oo wax soo saar fiican leh waa inaad ku shubtaa markastoo aad abuurayso oo talaalayso xilliga aad ku shubayso waa ka hadlaynaa haddii la yiraahdo markasta waa inaad ku shubtaa phosphoruskaas inaad marka ogaatid inta ugu hooseysa ama inta ugu sarreysa si aad u gaari lahayd wax soo saar fiican si aad u gaari lahayd waa inaad adiga tijaabo aad samaysaa inta aad ku shubto bishaan oo kale haddii aad ku shubtay intaasoo kiilo oo aad fiirisay marka dambe aad wax abuurto waxaa arkaysaa isbeddelka ay u keentay marka waa inaad adigu u fiirisaa beertaadii oo aad fiirisaa qiyaastaadii inkastoo soil analysis aad ku samayn karto oo aad maaragtay aad qiyaas ahaan aad ka qaadan karto haddii aad soil analysis samaynaysid haddii aadan samaynayna waa inaad beertaadii aad ku shubtaa oo aad fiirisaa isbeddelka ay keentay oo tijaabisaa xitaa haddii aad rabto waa inaad qaybo kala duwan aad ku shubtaa phosphoruska qaybana aadan ku shubin oo aragtaa isbeddelka kiilooyinka kala duwan oo ku shubayso ay keenayso marka waxay qaadanaysaa waqti dheer inaad ku barato qiyaastaas kala duwan laakiin haddii aadan warbixintaas aadan haysan oo soil analysis oo kale aadan haysan oo kale intii aadan abuurin basasha 200 ilaa 280 kiilo oo TSP oo kale ayaa wax ku shubi kartaa beertii ayaa la rabaa inaad ku shubtid laakiin waxaa la rabaa inaad aad ku shubtid inta aadan talaalin ka hor wax yar intaadan talaalin ka hor ayaa la rabaa inaad ku shubtid phosphoruskaas haddii aad marka ku shubto dhowr usbuuc ka hor haddaad ku shubto qaar badan waxay noqonayaan marka insoluble salt ayay noqonayaan oo geedkii wax uu ka faa'iideysan karo ma noqonayaan haddii weliba roob uu yimaado ama waraab badan aad ku shubto intii aadan talaalin basashaadii waxaa dhacaysa marka qayb hoose inuu sii aado sidaas darteedna basasho xididkaas fog inaysan u tegi karin oo iska gaari karin waa anaga sheegnay ciidaha alkaline waxay sameeyaan oo alkaline-ka ah oo pH-gooda u sareeyana waxay sameeyaan inay ka dhigaan phosphoruska mararka qaar mid aysan heli karin dalagyadii aysan heli karin mideeda kale phosphoruska sidaan hore uga soo hadalnay videoskii kale geeduhu waxay u baahan yihiin xilliga kore oo xididadii iyo wixii ayuu caawinayaa marka bilowga hore ayuu dalagu uu u baahan yahay phosphoruska inuu ka faa'iideysto ee gadaal looguma shubo markii geedka uu soo baxayo iyo markii la tallaalo markaas weeye marka koritaanka hore ayuu aad ugu baahan yahay marka geedka haddii uu weynaado
oo xididkiisa uu xoogaa yaro hoos usii dirsado isagaa marka ciiddii kii ku jiroo kale camal qaybaha hoose ugu tegaya. marka badanaa phosphoruska isaga side dressing waxa la yidhaahdo oo geedkii baxayo weyn dhinacyada loogama shuba isaga badanaa ma u baahnaanaysid waxa u baahan tahay inta aadan tallaalin wax yar ka hor in aad ku shubto oo aad kabacdina ku talaasho basashaadii aad talaalaysa aad sii geliso. marka sidaa hore usoo taabtana fertilizer kasta oo aad ku shubaysid waxay ku xiran tahay ciidda nuuca ay tahay, soil analysiska aad soo samaysoo kale, iyo inta aad rabtid inay kuu dhasho. haddii aad rabtid inaysa wax yar ay kuu dhasho dabcan nafaqada waa ka yaray kartaa, laakiin haddii aad rabtid wax soo saar fiican inaad heshid nafaqada adigana waxa lagaa rabaa inaad ku badisid. potassiumkuna waxay ka mid tahay waxyaabaha ay u baahan yihiin basashu si wax soo saar fiican ay u yeeshaan. 60 ilaa 250 kiilo ayaana lagu shubaa oo iyadu xoogaa waa ka yar tahay phosphoruska. laakiin taas waxay ku xiran tahay ciiddaadu inay ciid kaleeya tahay ama sandy soil inay tahay ama nafaqadii hore oo maaragtay oo potassiumka ku jirtay levelkeedu sida uu ahaa ayay ku xiran tahay iyadana. laakiin potassiumka isaga waa loo kala qaybiyaa 30% 50% markii aad talaalaysid ayaa ku shubaysaa. hadhow markii oo waxa la yiraahdo bulb development la yiraahdo oo maaragtay basashi markii ay korayso qaybtii hoose markii korayso markaas ayaa lagu shubaa qaybta kale oo ku dhiman waa loo kala qaybiyaa. marka waxay keenaysaa haddii aad qaybta dambe oo bulbku markuu korayo aad ku shubto potassiumka inay koritaankii oo basashii ay weynaato, qualitygeedii iyo xataa xilliga la kaydin karana ay kor u kacdo. laakiin potassiumka sida hore uga soo sheekeynay noocyo kala duwan ayaa jira oo potassium ah. marka mid la yiraahdo waxaa jira potassium chloride, taasna waxaa marka la sheegay in basashu cusbada fara badan oo dhinaca xididka ah haddii ay ku dhacdo in wax soo saarkeedii ay hoos ugu dhigayso. chloride-kuna marka cusbadii ayuu kor u qaadaya oo ciidda cusbadii ayaa ku badanaysa marka aad chloride ku shubtid. marka sidaas darteed potassiumka oo chloride-ka wadata oo potassium chloride la yiraahdo laguma shuba iyada maadaama ay cusbadii ay kor u qaadayso oo nafaqooyinka kale inay xididku qaato u diidayso. marka waxaa la isticmaalaa oo kale potassium nitrate midda la yiraahdo oo ay maaragtay nitrate-kana waa u baahan tahay oo waa nitrogenkii. marka potassium nitrate-kaas ayaa la isticmaalaa oo ku fiican. midaas kale waa la iska ilaaliyaa, kuwa kale potassiumyada kale waa la iska daayaa. insha allah marka videoska soo socda ayaan waxaan uga hadli doonaa nafaqooyinka aan uga hadlayno markii geedka koritaankii uu ku jiro, sida aad wax u samayn lahayd top dressingka saa u samayn lahayd oo potassiumka kuu dhiman iyo nitrogenka. maxaa yeelay hadda already kamaana hadlinba nitrogen lagu shubayo. marka talaalitaanka kadib ayaan taas aan u imaan doonaa oon ka hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo. sidoo kale videoga soo socda waxaan uga hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo waraabinta, nidaamka waraabinta sida loo maamuli lahaa iyo qaababka kala duwan ee la sameeyo oo la isticmaalo. taasna videoga soo socota ayaan insha allahu tacaala aan uga hadlaynaa haddii ilaahay yiraahdo, oo aad u muhiim ah in si fiican loo maamulo. marka waxaan rajaynayaa inaad video ka faa'iidaysateen intaan marka video kala kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo beerasho wacan.